بسم الله الرحمن الرحيم. فرينتان وفرين كوبان وكو آدن شقاقة كسعوداتا gobolka Awdal. walaalayaal arrintan ma aha arrin ku saabsan dadka walaalaha ah oo halkaas wada dega wada nool wada ah ehel iyo qaraabo xidid iyo saaxiib. arrintan waa arrin aad ugu weyn wax meesha ka socda. arrintan waa dagaal siyaasadeed oo caalami ah waxaana laga yaabaa inay ku jiraan dowlado gaar ahaan dowladaha dariska Itoobiya oo aad ogtihiin in ay waqti badan iyo dadaal badan gelisay sidii ay dhulbadeed ku heli lahayd. taxliil xalay uu ka sameeyay arrintaas qoraaga weyn ee ku takhasusay arrimaha siyaasadda ama wax ka qora gaar ahaanna aqoon iyo fahan dheer u leh waxa loo yaqaan geopolitica ama siyaasadda iyo juqraafiga kaalinta ay siyaasaddu ka ciyaarto dal meesha uu ku yaal geopolitical waxa la yiraahdo. Abubakar Armaan waxa uu sheegay in dagaalka hadda socda ujeedkiisu yahay in la yiraahdo dadkaas in la kala dhex galo weeye ciidamo Itoobiyana la keeno weeye halkaasna ay si sahlan oo aan dhiig ku daadan ay Itoobiyaanku ku soo dagaan kana helaan meel ay isku ballaariyaan. waxaa loo baahan yahay dadka leh go'aamada siyaasiga ah ee madaxda ah ugu horeyso dowladda Somaliland inay arrinta iyada ah ay gaashaanka u daruuraan. runtii marxaladda la maraya haddeer dunidu waxyaabaha ay ku dagaalamayso waxaa ka mid ah awoodaha dhaqaale. meesha aanu ku naallana adduunka waxaan ka nahay halbowle. waxaanu ku naallaa baabulmandab, waxaan ku naallaa badda cas, waxaan nahay boqorrada geeska Afrika. sidaa daraaddeed qof walba waxaa la rabaa inuu sacaadafadoon, waxaa la rabaa in aragti fog lagu hadlo, lagu xisaabtamo dadka walaalahaana ay hawshooda iyo culaysyada soo waajahay ay hoggaamiyaan caqli u saaxiiba aqoon iyo aragti fogaan. waxaan ku hanweynahay in halkaas ay ku dambayn doonto maslaxad shisheeyana aysan soo fargelin. ilaahay subxaana wa tacaala ha qaboojiyo maslaxaddana ha lagu dadaalo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.